السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن صاحبة قيمها قدرت إيقاعها لقوم دلو مال البوء جوكتال إي مرحلة البوء دلو داول سال وحال أهود دكالي لهي رمضان الكريم رمضان مبارك وبشمس غينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان maanta waa 15 bisha barakeysan ee Ramadaan waana nuska marka bisha Ramadaan dabcan waxaan muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa mar hadii la joogo nuska bisha barakeysan ee Ramadaan oo aynu soo macsalaameena qayb kamida bishan ma sii socon karnaa sidee marka firfircoonideena ama tamarteena aan dib ugu soo nooleen karnaa muuqaalkeena qodobkaasi ayuu ku saabsan yahay waxaana markaa aan diiradda saari doonaa sidii tamar cusub aan markaa jirkeena ugu abuuri lahayn iyo sidii markaa aan hore ugu sii socon lahayn maadaama 15 maalin oo kamida bisha barakeysan ee Ramadaan aan hore u soo qaadanay isla markaana ay sugayso 15 kaleeto oo bartanka bisha barakeysan ee Ramadaan aynu taaganahay iyo sida markaa rootiinkeena ama jadwalkeena aan u bedeli lahayn taas oo markaa qayb ka ah nidaamka markaa aan tamarta cusub markaa ku sameysanayno ama energy markaa aan ugu sameysanayno maadaama 15 maalin aan soo soonneen waxaan sidoo kale muuqaalkeena ku eegi doonaa sida markaa aan uga fogaan lahayn waxyaabaha dili kara ama dhimaya firfircoonideena qodobadaas ayaan ku dul istaagi doonaa hadduu Allah uu dal raali ka noqdo ee soo dhawaada saaxiibayaal quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko mar kale kulan wacan saaxiibayaal muuqaalkeena waxaynu ku eegi doonaa nuska Ramadaan iyo sida markaa aan dib ugu soo nooleen lahayn firfircoonideena muuqaalkan waxa uu ka mid yahay muuqaalo taxana ah oo aan ugu talagalnay inta lagu guda jiro 30 bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan hadda joognaa bartamihii bishii barakeysaneed ee Ramadaan 10 maalmood ee hore ee naxariista waynu ka soo gudubnay oo waynu soo dhaafnay waxaan hadda dhexda ugu jirnaa ama bartanka aynu ka taagan lahay 10kii dhexe oo ah markaa 10ka dambi dhaafka dad badan ayaa markaa xilligan la joogo waxay dareemayaan culays markaa soonkii markaa ku soo kordhay caajiskuna aad ayuu ugu sii xoogeysanayaa oo cibaadadu ayuu markaa halis ku yahay inuu ka mashquuliyo halkan waxaan ku haynaa dhowr talo oo markaa ka caawinaya sidii aad hore ugu sii socon lahayd oo xawaarahaada markaa aad ku kordhin lahayd qodobka koowaad wuxuu yahay xusuuso in markaa tale ay tahay bil kooban oo kaliya Allah subxaanahu wa ta'ala marka uu ka hadlayay Ramadaanku wuxuu yiri ayaaman macduudaatin maalmo tirsan waa bil markaa durbadiiba dhamaanaysa maalmaha haray ayaa ka yar kuwa markaa tagay marka hawo ogolaan laftaada in markaa ay daasho iyada oo ay u dhowdahay guushii weyneed rasad ku sameey niyadaada haddii aad dareento in cibaadadu markaa iska noqotay caado rootiin ah joogso xoogaa isweydii maxay tahay ujeedada marka aad arintan u sameynayso maniyad jabba mise waa sidoo kale daal jireed dib u cusboonaysi niyadaada adiga oo xusuusanaya in maalin kasta oo hartay ay tahay fursad marka aad uga mid noqon karto kuwa marka laga xoreeyo naarta tartanka rasmiga ah hadda ayuu bilow yahay tartanka orodyahanadu ma tartamaan bilowga laakiin marka ay soo dhawaadaan dhammaadka ayay xoogga saaraan adiguna waxaa lagaaga baahan yahay marka in aad taasi xusuusanaato oo aad markaa jirkaagu siiso tamar badan iyada oo markaa niyadda aad ku hayso ama aad xusuusan tahay in waxaana ay yihiin bil kooban oo ay dhammaanayso hadda waxaynu u dhowlahay 10ka dambe iyo sidoo kale habeenada leylatu qadriga haddii aad bilowgii bishan gaabis ahayd hadda bilow in markaa aad dadaalkaadii dadaal kale ku sii darto oo xawaarahaadii aad kordhiso قنفي صوبنا أيوه أنا
asxaabta raacne sooma ramadaanka bedel nidaamka rootiinka si aad caajiska uga baxdo isbeddel ku sameey jadwalkaagii haddii aad markii hore qur-aanka akhri jirtay afurka kadib isku day inaad akhriso subaxdii hore dhegayso muxaadarooyinka dhiirigelinta ah oo ka hadlaya fadliga 10 dambe ee ramadaan sameey camal cusub oo aad hore u samey jirin sida in qof masaakiin aad u furiso oo kale ama inaad caawiso qof dhibaataysan ka fogow dilaaga firfircoonida waxa ugu badan ee dadka ka dhigo kuwa caajisan nuska ramadaan ee dambe waa in markaa ay tamartu sii yaryaraatay balse waxaa loo baahan yahay inaad ka fogaato waxyaabaha tamartaada dilaya ama firfircoonidaada yareynaya cuntada badan ee afurku waxa ay keentaa culays iyo caajis salaada taraawiixda ah marka waa inaad iska yareysaa oo aad ka fogaataa cuntada badan ee afurka hurdada aan habeesleel isku day inaad hesho hurdo markaa kugu filan habeenkii si maalintii aad u noqoto qof firfircoon alla weydiisashada kuma socon kartid xooggaaga iyo caqligaaga ee alla weydiiso in markaa uu kaa caawiyo cibaadadiisa ilaahayow iga caawi xusidaada kumahadlaqadaada iyo sidoo kale qorxinta cibaadada qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko nuska ramadaan waa barta ay dadka xoogga badali ka soocmaan kuwa daciifka ah ha noqonin qof markaa bilowgii ku fiican laakiin dhammaadkii fashilmay xusuusalow in camalka markaa lagu xisaabiyo dhammaadkiisa qonkiisu banaayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanka salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari guud ahaan daawadayaal muuqaalkeenii maanta oo ah 15 bisha barakeysan ee ramadaan intaas ayuu inooga eg yahay waxaana muuqaalkan uu ka mid ahaa muuqaalo markaa taxano ah oo ka mid ah muuqaalo aan ugu talagalnay in daawadayaasheena aan u soo baahino inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dabcan waxaa inagu soo maqan muuqaalo kale oo xiiso badan oo aad daawan doontaan maalmaha markaa ee looga haray bisha barakeysan ee ramadaan dabcan haddii muuqaalkan uu ku soo gaaray waxaan kaa codsanaynaa oo si naxariis leh kaaga codsanaynaa in markaa aad sheergarayso oo aad la garayso si saaxiibo fara badan muuqaalku uu gaaro isla markaana ay ugu faa'iidaystaan macluumaadka halkan aan ku soo bandhigno tani inta markaa muuqaalka xiga aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo ramadaan kariim insha allah ربي تصفر عننا قرعنا رمضان رسولك محمد ربي تصفر